إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، وحين كوكو جرني كتاب كيني أدلة بداية المتفقه وشرح رسالنا يو كتاب بداية المتفقه أوليه وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. يا كتاب الذي سيلا سعته صارنا يا شيخ أيمن بن علي الموسى رضي الشيخ كتاب waxa uu ka hadlayo waa kitaab fiqi axkaamta shariicada ee fiqiga qofka suu ugu dhaqmi lahaa. nabigana sallallahu alayhi wa sallam uu leeyahay man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi diin. qofku Allah subhanahu wa ta'ala khayr la doonayo, wanaag la doonayo, hanuun la doonayo, sacaado adduun iyo aakhira la doonayo, diintiisu fahamsiiyaa. fiqigana waxa uu ka mid yahay meelaha qofku uu diintiisa ka fahmayo, hadday quraan tahay, hadday axaadiistii nabiga sallallahu alayhi wa sallam ay tahay, iyo hadday ijmaac iyo qiyaaskiiba ay tahay. waxa la daliishanayo dhan ujeedka loo daliishanayo fahamka lagala baxayo nuxurka lagala baxayo cibaadada ee qofku uu doonayo meesha uu ka fahmayey indhaheedii iyo ilaheedii weeye. waxaynu soo qaadanay biyaha iyo axkaamtoodii baynu soo qaadanay. aadaabta waxaan leeyahay axkaamta marka la xaajo gudanayo ayaynu soo qaadanay. waxaynu soo qaadanay oo kale waxyaabaha khasladaadka fitrada qofka muslimka ilaahay subxaanahu watacaala ku beeray oo axkaamta gudniinka hadduu ilaahay ku ilmeeyo, waxyaabaha kale ee fitrada iyo shaaribada iyo garka iyo timaha hoose caanada la yidhahdo, waxyaabahaasinu axkaamtooda soo qaadanay. cidiyaha iyo jarku sida la isaga jarayo iyo shareecadu intay taxdiid xad u dejisay. caawa waxaa ka mid casharadeenna casharka shanaad, maadaamaaynu 4 casharo hore soo qaadanay kitaabkan axkaamta caawa waxaynu qaadanaynaa casharkii shanaad oo baabul wudu, wayseqaadkii axkaamtiisii iyo xukunkii sharciga, maxaa waajib maxaa sunno ayaynu caawa kala ogaanaynaa. wixii burinayay iyo wayseqaadkuna markaa casharka 6aad yuu noo noqonayaa ama 7aad buu noqon karaa marka haddii masxul khufeynka uu soo dhexgeliyo. wayseqaadka alwudu marka wowga la godo luqada waxaa lagu yidhaahdaa min alwadaa'ati wannadaafa, waa isdhaqidda iyo isnadiifinta ayaa wudu marka wowga la godo alwudu aad tiraahdo waa isdhaqidda iyo isnadiifinta weeye. wuxuu ku yidhi marka walwudu'u bidammi, wowga oo la godo yuqsadu bihi alficlu, waxaa loola jeedaa ficilka qofka uu samaynayo. haddii aad aragtay alwudu waa wayseqaadkii ficilkii weeye. alwudu'u haddii wowga la kordhigo bilfatxi oo wadu aad tirahdana biyaha laftigooda loola jeedaa. marka inaysan luqa ahaan iskaga kaa qaldamin buu rabaa. marka ficil laga hadlayana waa la godayaa wowga. markii biyihii aad ishaaraysidna wowgii waa la kordhigayaa. meeshuu noogu imaanayay saada albaabul wudu buu yidhi, ficilkii buu ka hadlayaa sida loo weyse qaadanayo ee biyihii laga hadlimayo. biyihii waynu soo gudubnay. istilaaxa iyo sharciga culummada ay u dejiyeen wayseqaadka waxa weeye, waxa la yidhaahdaa yuطlaqu calaa ghasli alwajhi walyadayni wamasxi alra'si wagayri dalika min afcaali alwudu. waxaa lagu idlaaqaa waxa wayseqaadka loo yaqaano wejiga oo la dhaqo, labada gacmood oo la dhaqo, wejiga oo la masaxo, waxaa leeyahay madaxa oo la masaxo, iyo wixii la midka ahaa afcaashii iyo ficiladii wayseqaadka la samaynayay ayaa wayseqaad la yidhaahdaa marka loola jeedo, si luqada ma aha. marka daliilku qur-aankay ku soo aroortay oo ilaahi subxaanahu watacaala wayseqaadka aayad wuxuu ku tilmaamayaa suuratu lmaa'ida aayadda 6aad, yaa ayuha aladiina aamanuu
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وعلي الله سبحانه وتعالى يسوى واقع ذاتك مؤمنين تاها يا أيها الذين ذاتك آمنوا إيمانك لغهلو إذا قمتم مركز أكعيسان دو استاغيسان إلى الصلاة صلاة أكعيسان فاغسلوا دقا أميرا وجوهكم وجيدين وأيديكم يقعمهن إلى المرافق مع المرافق حصول الله إلى الجيران وامسحوا مسحا برؤوسكم مدحيدين مسحا وأرجلكم لغيهن دقا إلى الكعبين لا أنقو يد اللقاقارو وإن كنتم هداتهين جنوبا كوجنابا قبنا فطهروا طهارقات أميسا وقبيسا. آيات مرك انتو كدليشان إياه ووحي نوشكت آيات أحكانا مركات صلاة كعيسان فاغسلوا وجوهكم وجيدي دقا. Your distributed conference is now split into several sub-conferences due to a communication failure. It will be reconnected automatically if the problem is resolved. فاغسلوا دقا وجوهكم وجيدين وأيديكم قعمهن إلى المرافق إلا مع المرافق يكجران مدحين مرصحة لغيهنا دقا أفر حكم بينو شيكتا آيادو كدبنا مركا انت كلا واجباتك وحنو يري مركا لحظة وتلماميو لبدا كلا سنة يوحا نوغود دريسة أحكامتا كلا أينو كقادنينو وفيه وحا قصو أروري باب الوضوء ويه ثلاثة ضوابط سدح ضابط ثلاثة ضوابط باقصو أروري سدح ضابط أما سدح قي أما سدح حكم أو كسكوسو أرورين يوكوسو كوبية أي قصو أروري ويسقات كسادو فاهدي. الضابط الأول قيد كهوري قصو أرورين يحكانتي كاكلا فرقساني فروض الوضوء ويسقات كفرض كذا 6 لحوة يوكيري غسل الوجه وجه الله دقه ومنه وحا وجهي كمده المضمضة اللقلوق شديئيو واستنشاق إن لصندار سدو بيه سنه الجليو غسل اليدين لبدا قعمود الله دقه مع المرفقين حصل الذين أي لجلان وتخليل الأصابع فريه إن بيها الجليو لغو تخليليو مسح الرأس مدحي الله مسحه ومنه مدحين وحا كمده الأذنان لبدي دقود با كاملة غسل الرجلين لبدي لغود الله دقه مع الكعبين أنقويضي إلى الجيران وتخليل أصابعهما يفريه لغها الله فلنقيو بيه لقليو الترتيب إن لا ترتيبيو سيدا يكله الريان آنا لك لبدلين والموالاة إن لحريريو آن لك لجرين لحظة waxay kamid tahay waxa faradka weysaqaadka ah waa intee hadii lagu yiraahdo weysaqaadka faradkiisu waa 6 marka markuu halkan noogu tilmaamay oo uu leeyahay daabitka koowaad furuudul wudu'i weysaqaadka wowga laga hadlayo wowga kornaamaha wudu hada tiraado biyo ka noqonaysa marka furuudul wudu'i weysaqaadka faradkiisa waa ficilkii loo weysaqaadanayo 6 weeye marka halkan faradka uu la jeedo علماء قال باكلا قاضة وحل يرادو فرض iyo واجب kala qaada laakiin sida qowl jamhuur culimada xoogoodu ay marayaan farad iyo waajib waa isku mid xanafiyada kala qaado oo kaliya laakiin hadii farad lagu yiraahdo iyo hadii waajib lagu yiraahdo labadaba waa isku mid saasana saxan laakiin hadii ay adalagtid meel culimo kala qaadayso shaygan farad ma aha waa waajib waa aragtida بعض العلماء أي دليشانيان لكن وحاوية إن وحقوق المامي فروض الوضوء ويسقارك وحا فرض كاه 6 لحوية هل كان سمرك عدو كور مريي وقوت المامي ويسقارك وحا فرض واللحوية كو وحو دليشانيا آيات القرآن كالله سبحانه وتعالى القرآن قصو أرورتية المامي سأفر كامذات المامي وقرآنكي كمدا وصو قاتي فرضنمديدي way tilmaamaysaa waa la isfaray dadkii muuminiinta ah إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم waa la is amray سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران مولى عثمان بن عفان بوكيني أنه رأى وحو أركي مولاها حمرانة
عثمان بو أرك رضي الله عنه دعا بوضوء وهذا وقرد سومالي دعا وحو يري بوضوء به الوي سقادنيا فأفرق وحا وكشبي كفر على يديه يعمه سي من إنائه ويلك وهيب كفر يعمه فغسلهما 3 مرات يعمه وسدح جير دقي وانت هوري عكرده اما عمعمت حتى لا هدبه انت هورو دقي ثم أدخل يمينه في الوضوء ويلكي ويسقات كل حجريه marka gacanta markuu banaanka ku dhaqay inta badan saxaabadu waxay isticmaali jireen biyaha gacanta la geliyeen marka weelkii ثم أدخل يمينه في الوضوء بوجليه ثم تمضمض واستنشق وسoo qaaday biyihii uu ku luqluqday uuna ku sandaarsaday wastansara waana iska soo diifiyay ثم غسل وجهه وجهي buu dhaqay 3 saddex buu dhaqay ويديه لبديس قعمودنا إلى المرفقين لغا جارو حصلدي لغا جارنا 3 saddex buu dhaqay ثم دبرت مسح ومسحي برأسه مدح ومسحي ثم مسح ومسحي برأسه مدح ومسحي ثم غسل ودقي كلتا رجليه لبديس اللغود 3 saddex buu dhaqay ثم قال مركاسا وحيري رأيت وحن أركي النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ويسقى نحو وضوء هذا سيدان أن ويسقى وكلا ويسقى وقال مركاسا وحيري من روحي توضأ ويسقى نحو وضوء هذا ويسقى كان وكلا ويسقى ثم صلى تكاله ركعتين لبركعدود لا يحدث عن وشكين فيهما دحدو صلى الله عليه وسلم نفسه نفتي سواء الدنيا أنا سوقلين غفر الله له الله ودافيا ما تقدم من ذنبه سواء هرمر يرنبه دافيا مرفوح تلمام عثمان حبنه يصير ويسقاتك يفروض شدي واجباتك ذيبو تلمامي تامرك وحي نتصيسا ويسقاتك النوع عاسا إن أي كم تاعي مركا qaabku nabigu sallallahu alayhi wa sallam adilada waajibnimadeedana tusinaysa wuxuu ku bilaabay marka furuudul wudu leeyahay oo ku bilaabay inuu soo niri farad iyo waajib labadaba waxa weeye inay macnaha isku xukun ay yihiin hadaad ku aragtay sidaas aqool jamhuur al-ulama oo sax ah macnaha waahid inay keenayaan umuraha imaanayo dhan hadii waajib lagu yiraahdo kutubta qaar ka cabiraan iyo hadii farad laga cabiraba labadaba ay isku mid tahay wuxuu yiri koow waxa kamid ah marka lixdii qodob ee weysaqaadka waajibnimadiisa ahayd ghaslul wajhi wajigiyo la dhaqo ومنه وجهنا waxa kamid ah almadmadatu in la luqluqdo afkiba kamid ah wal istinshaqu sankina wajigu kamid yahay in biyihi la geliyo wajiga hadii aayadu ay ku tiri dadkii muuminiinta ahayo ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum lagu yiri wajiyadiini dhaqa afki iyo sankiba wajigay soo hoosgalayaan marka waji maxaa la yiraahdaa xadka wajiga uu leeyahay muwaajahada hore dherer ahaan marka laga fiiriyo waa tinta fooda meesha ay ka soo baxaysa muctaadka ah dadka ah fooda ugu horeysa ee tinta ah ila asfali dhaqni garka hoostiisa laga gaaro dherer ahaan waji waa inta بلعنا وشحمة الأذن عرضا إلى شحمة الأذن دكتا عرض ذا الله إلا دكتا كالعرض ذا أنت أبدا حيثا إن لدقه درك يبلعه دركنا وفوده إلا قرك سلكي سلقاره بلعنا ودكتا عرجوضة إلا دكتا عرجوضة ذا لقاره أنت أبدا حيثا يا وجه اللي هذا ومنه وحاكمه كير وجهي مركه المضمضة والاستنشاق إن اللقلقضة المضمضة والغلقشة بيها أفكال أوريجيني انت لقيه والاستنشاق نوحى ليرادا بيها انت لقاضة سنك حوغا لوجي ليه أيها سنداسي ليرادا لبضوض إنا يسوهز قليانا أدي الذي يذيبو يسوكا الراعين اياه ووحو كوكين اياه أدي الذي تلماميسا إن أي لقلقشدو iyo sandaasigu ay waajibkiisu isgalay kamid yihiin Allah subhanahu wa ta'ala amray rasuulkiisa min hadith laqit ibn sabra inuu idin keenay kitabkan adillatu bidaya adilladan ma qan laqit ibn sabra uu keenaya
وكينيا لقيط بن صبرة وحوليها مرك لقيط بن صبرة وحوليها إن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا توضأت فمضمت مركا أدوي سقاذا أيسي لقلقو وحديث كاسي وحا كينيا أبو داود باكينيا بيهقي باكينيا وأنا حديث صحيح سنة أبو داود بشيخ الباني كل صحيح يا سيدو كان من حديث أبي هريرة رسولك صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم كينيا وحير إذا توضأ أحدكم متكين مركا ويسقى غنيو فليستنشق بمنخريه من الماء سنكي بيها جي لا سنخروركي marka inuu sooman yahay ana ka ahayno markaasi xadiis ka saaraysa noo imaanaysa marka xadiis ninka la yiraahdo samura laqit ibn sabira iyo xadiis salamat ibn qays ila tawada'ta fantasif bi iska soo saar suuq tirmidhi ibn majah وكان شيء albani صحيح الجامع الصغير 450 uu ku keeno adilada aan loo tilmaamaysa wajiga marka la dhaqayo in luqluqashadii iyo sandaarsigiina lagu daro waajibaadkii bay soo hoosgelayaan inaan laga tagin biyihii sanka la gelinayay iyo luqluqashadii qofka afka biyihii uu ku wareejinayaba labadaba waajibaadkii wajiga dhaqitaankiisa bay soo gelayaan qofkii ka tagi jiray oo ogow rugni kamid ah arkaantii wayse qaadka inaad ka tagtay wudu'i wayse qaadka faradkeeda waxaa kamid ah 6 weeye غسل الوجه كهره ووجه ولا دقو ومنه وجهنا وحا كميده المضمضة والاستنشاق إن لقلقضه ولا صندارسدو بيه waxa weeye sanka la geliyo la iska soo diifiyo waxay kamid tahay waxyaabo wajigi daqidiisi ayay soo hoosgalayaan qodobka labaad ee wayse qaadka ee rugniga labaad waxa weeye ghaslul yadayni labadii gacmood oo la dhaqo مع المرفقين xusulladiina ay la jiraano xusulka sokadiisa ma xusulladii way soo hoosgelayaan oo alla dhaqaysayo bihi waad ku wareejinaysaa marka xusulladu way soo hoosgelayaan dhaqitaanka la dhaqayo oo taa hore qofkii aragti macnaha luqluqashadii iyo sandaarsigii biyaha marrabno inaan aragtida culimada ku si balbalaariyo kitaabka maadaama kitaab bidaaya uu yahay oo bilow uu yahay qolkan weeye oo sheekhu uu marayo luqluqashada iyo sandaarsiga waa waajib qol labaad baa jiro oo culimada aragtidooda iyo fikradooda ah inuu sunna uu yahay in macnaha luqluqashadii iyo sandaarsiga imaam Malik imaam Shafi'i ku tago xadiis inuu soo marmay 10 min al-fitrati waxa lagu sheegay al-madmadatu wal-istinshaq wal-fitrati hiya sunna ayu daliishadeen waa qol laga xog badan yahay daliiliisu aysan waadix ku ahaynayso ku cadeyn xadilada sida waajibaadka inuu tilmaanay aysan ugu cadeyn qorana way kala qaadaayo waxay yiraahdaan luqluqashada iyo sandaarsigu marka laga qubaysanayo janaaba ama xayd ama nifaas waa waajib waxa leeyahay waajibataan fi al-ghusl sunnatun fi al-wudu' qorana way kala qaadeen marka qubaysanayo waajibna in la luqluqdo sanki biyaha la geliyo waa waajib marka la weyse qaadanayana waa sunno qoladaas saddexaad qolkaas iyaguna ay qaateen qol afraad baa jiro istinshaaqa waa farad madmadaduna waa sunna iyagana dhahaya laakiin marka la isku soo celceliyo sida raajixa ah waxa weeye wallahu a'lam oo ku muuqata adilada ay ku cadahay inay weyse qaadka iyo qubayska labadaba waajib ay ku tahay amuuro badan bay ku imaataa quraanku amr mudaq baa ku soo arooray oo madmadada iyo istinshaaqa amarkan waajib buu faa'iideeyaa hadduu soo arooro afkii iyo sankiina min alwajhi ma'muur bighusli bay kamid yihiin af wajigii la isfaray oo aayadda quraanka ay tiri dadkii mu'miniinta ahayo markaad u kacaysaan salaad faqsi wujuhakum la yiri afkii iyo sanka wajigii bay soo hoosgalayaan xadiis waajibnimadooda tilmaantayna way jiraan adilada kale culimadu daliishanaysan waa adilo badan oo dacfi ku soo arooray qolada sunnanimada tusayso wujuh badanna waa lagu radiyay oo lagu celiyaa laakiin khilaafka hadeen ma sii garayno waxa xoog badan markaan isku kiin celcelino haduu markaad kutubta kala qaadanaysaan dad sii badsanaysaan laakiin aragti ahaan baan idinku muujinayay
in ay wejigu dhaqitaankiisu luqluqashada iyo sandaarsiga ay soo isgelayaan waajibnimadaasaa xoog badan qodobka labaad ee waxyaabaha faradka waysaqaadka waxaa ka mid ah ghaslul yadayni labadii gacmood oo la dhaqo macal mirfaqaynkii xusulladiina ay la jiraan oo aadan ka tegin ilaa qur-aanku allah subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi waaydiyakum ila almaraafiqi gacmihiina aad dhaqdaan ila almaraafiqi ay maca almaraafiqi xusulladii ay ku jiraan iyo xadiidkii cusmaan aynu soo marnay oo waxaa ka mid ah xadiidka cusmaan gudihiisa uma gasala yadahu lyumna ila almirfaqi 3 maraatin uma alyusra mila dalika gacantii midigtuu dhaqay 3 jeer buu cusmaan dhaqay bidaxdiina sidoo kale 3 jeer buu dhaqay marka qur-aankiina way ku soo aroortay waajibaadkeeda tilmaamihii saxaabadu ay wada tilmaameenna waysaqaadku in gacmihii la dhaqo waajibkaasi iyo fulinteedii waa laga qaadanayaa oo way ku caddahay waxaa ka mid ah qodobka saddexaad ee waxyaabaha faradka ah wa takhliilu lasaabici farihii in la falanqeeyo oo biyihii la dhex geliyo marka la dhaqayo farihii gacmaha ahaa dad badan intay dhaqaan gacantii ilaa xusullada ay dhaqaan yay farihii dhexdooda ka tagaan waxyaabaha waajibaadka waxaa ka mid ah farihii inaad isdhex geliso oo gudahoodii ay biyaha ay gaaraan haddaad kaatun aad ku xiran tahay iyo haddii ay waxa weeye farahu qofku ay burburan yihiin intuu dhaqo biyihii ay dhaafaanoo farihii dhexdooda meel ay ka caddahay haddii waysaqaadkaagii ma dhammaystirno taasuu rabaa marka inuu kugu dhammaystiro wa takhliilu in la falanqeeyo la gelgeliyo al asaabici farihii dhexdoodana biyaha oo maxaa loo daliishanayaa من حديث لقيط ابن صبيرة قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري أسبغ الوضوء ويسقاتك تاميل وخلل دحجلي بين الأصابع فرها دحضوضة وبالغ في الاستنشاق الصدرسي بيه سنك اللي قلنا ينكوح الدرو إلا أن تكون صائما إن أصومنتها الموية هذا أصومنتها أدو جيدي ميسي ومركاسي لما أقول بيه هنا كو قدبانا صونكا جبال لغا بقيا لكن انت كالي ماشو هذا كدليشانا يمرك وحا وخلل بين الأصابع فريه دحضوضنا وأمر مرك لإسفاريا ويكو عرضها مركا حديثك in marka farihiina biyaha la dhex geliyo inta badan dadku way dayacaan oo marka ay waysa qaadanayaan gacanta un baa kor laga dhaqaa laakiin biyihii farihii dhexdooda iyo biyihii lama gaarsiiyo waxaa ka mid ah masxu ra'si baa ka mid ah lixdii qodob ee faradka waysa qaadka masxu ra'si madaxii oo la masaxo ayaa faradkii waysa qaadka ka mid ah wa minhu madaxiina waxaa ka mid ah al-udunaani labadii dhagood madaxii bay ka mid yihiin masxu ra'si wa minhu waxaa ka mid ah al-udunaani labadii dhagood oo madaxay la jiraan oy la socdaan masxu ra'si marka waxaa laga qaadanayaa jumladaasi madaxa in la masaxo waa waajib waxaan idiin tilmaamayaa masaxidda madaxa la masaxayo qur-aankuna wuu tilmaamay sunnada nebigana way tilmaantay laakiin waxaan rabaa inaan idiin bayaaniyo oo keliya culummada aragtidoodu qadarka madaxa la masaxayo ma hal mar baa inta gacantii madaxa foodiisa laga bilaabo qadaadka dambe la geeyo la soo celiyo ayaa ku filan mise fooda keliya sida qaar bacda shaaficiyada ay yeelaan fooda xoolaha haddaad biyaha saa u taabsiiso dadka waaweyn baa u badane ad u malayso madaxa biyaha saas ugu garaacayaan intaa yarta haddaad ku samayso way kaa gudaysaa marka wuxuu yidhi masxu ra'si madaxa masixidiisu aayadda qur-aanku adiladeeda hoos u soo qaatay waajibnimadeeda wamsaxuu biru'uusikum madaxiinni masaxa xadiidka cusmaanu soo hormarnayna wa fiihi waxaa ka mid ahaa uma masaxa bira'sihi madaxii buu masaxay waajibnimadu way ku caddahay in madaxii la masaxaya amaa sifatulmasxi buu ku yidhi kitaabka qofka adilada ayuu kuusii tilmaamaya amaa sifatulmasxi sifada iyo qaabka loo masaxayo xadiidka cabdullaahi ibnu zayd ayaa ku soo arooray wa fiihi waxaa ka mid ah uma masaxa ra'sahu madaxiibu wuxuu ku masaxay biyadayhi labadiisa gacmoodoo fa aqbala bihima wuu qaabilsiiyey oo soo qaabilsiiyey waa adbara wuu sii jeediyey marka intuu saasi macnaha soo qaabilsiiyey ayuu sii jeediyey ama gadaal kaga soo ama hore kaga soo bilow fa aqbala bihima wa adbara halkaa fooda intuu hore gacmood saaray oo uu ku bilaabay buu gadaal intuu geeyo soo celiyey
بدأ بمقدم رأسه مدح فوديس وكبلابي حتى ذهب بهما إلى قفاه إلا لبدي قعمود سوء ودي قذاك الدنبؤوكي ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ماشي وكبلابي بو هذا نكسو عليه هذا فودي كبلوضي وما لبدي قعمود انت سوق قبطي مدحي فودي كبلوضي قذاك أدقيسي هذا أتكسو عليه سيدو ماشي أتكبلوضي وفودي أتكينتي حديث خاص دي بخاري باورينا يويكو عردعي تجاهه wuxuu u keenayaa uu leeyahay ومنه الأذنان دليلكooda Abdullah ibn Zayd xadiiskiisa rasuulku wuxuu yiri الأذنان من الرأس dhagihi madaxay kamid yihiin ay tabac lahuma fil wujub wal masx ayagay tabac u yihiin waajibnimada in la masaxo waxa meesha uu ka saarayaa dhagaha biyaha cusub ee loo soo qaadayo la marmarinayo asu diidan yahay dhagaha marka laba shay waa ku samaynaysaa hadda sheekhu marsi qeexin oo marsi cadayn oo uu ku gaabsaday madaxay kamid yihiin buu yiri madaxay kamid yihiin buu yiri oo madaxii macnaha lala masaxaya oo xadiiska Amr ibn Shu'ayb baa tilmaamaya min xadiis an abihi an jaddihi nabiga sallallahu alayhi wasallam tawadda fa adqala isba'ayhi sababatayn labada farta sababatayn kala yiraahdo suulka ku xigta ama macna lagu tasbiixdo sabahatayn waa la yiraahdaa lagu tasbiixsado ayuu dhigaha geliyay ومسح بإبهاميه على ظاهره فرتين جذوه كجمع صحي صور كان ظاهر كبنانكو كجمع صحي وركوها حديثكو أها ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالصباحتين بباطن أذنيه جذوه كجمع صحي حديثك أسوسري أبو داود يبيهقي صحيح عن أها مركب فرتا صباحتين كلا يراد لغو تصبيح الصدو أما فرتا التاجل اللي اسكو عنانتا ayaa dhigaha gudaha kaga masaxaysa suulkana banaanka marinaysa laakiin waxaad la masaxaysaa markaad madaxii masaxdo oo aad foodo ku bilowdo qadaadkii dambe labadii gacmood aad geyso balalkii iyo qoyaankii ku soo haray waad marin kartaa oo dhigtii fartiin inta gudaha kaga masaxdo suulkana banaanka kaga marin ama waad ku kaaftoomi kartaa oo madaxii hadaad masaxday dhigihii madaxii kamid yihiin sidoo uu yiri sidaas waa sida caam ahaanta soo aroortay أما قابك dadku ay sameeyaano biyo cusub inta loo soo qaado dhigtii la marinayo mar ama labo ama saddex loo soo qaadanayo adiladeeda saxiix ma aha sida dadka waaweyn inta badan iyo caamada ay u badan yihiin adilada ku tusaysa dhagaha in biyo loo soo qaado oo laba jeer mar iyo laba jeer iyo saddex jeer la masaxo adiladeeda ma sugna marka waxa kaga kaabtoomaysaa mar inaad sifa ahaanta intaad masaxdo qadaadka aad geyso dhagihiina madaxay kamid yihiin ama gacantii qoyaneyd ee balalka ahayd aad inta suulka farti la mariso gudihiina ka geliso suulkana banaanka aad ka mariso biyo cusub aad u soo qaadin biyaha aad madaxa ku masaxdeen wuxuu yiri ghaslu rijlayni labadii lugood oo la dhaqo faradkii waysaqaadka kamid ah macal kacbayni an qawiyadii ay la jiraan labada lafood ee lugta waxa weeyaan qawyada geesaha kaga taagan waxa weeye ciribta korkeeda ah ayaa aan qawl kacbeynka la yiraahdaa ilaa laga gaaro faradku waa inta ghaslu rijlayni labadii lugood oo la dhawo macal kacbeyni aan qawyada ay la jiraan oo muxuu u daliishanayaa kacbaanka uu ku tilmaamo huma calmaani waa laba lafood naa'itaani ladani bi asfali saaqa dhudhunka hoostiisa oo min jaanib alqadami ah xigta ka soo baxa weeye دليلنا waxa uu daliishanayaa labadaasi aayadii quraanka tilmaantay oo wuxuu alla ku tilmaamay wa arjulakum ila al-ka'bayn lugihiina dhaqa ila ka'baynka aan qawyada laga gaaro oo way ku cadahay marka adiladeedu quraankiina way ku cadahay sunnadiina asxaabadii xadiiskii aynu soo marnay xadiisoo dhan way tilmaamayaan وتخليل أصابعهما وحيابها فرضك ويسقاتك وحا كمده وتخليل إن لفلنقيو بيه لقيا أصابعهما أصابع الرجلين وي لبدي اللغوات marka aad dhaqaysid farahoodina biyaha inaad dhex geliso aad waxa weeye falanqaysido faraha qofka burburinayo lugtii aysan gudaha u dhaqmin qofkaas deel hadiisan biyo gudaha gaarin way isqaadkaagi ma jirayo si marka aad lugta marka aad dhaqaysid
ama biyihii aad ku shubaysa ama tuubada aad u dhigaysidba fartaada yar inaad farihii dhex gelgeliso asarka Bayhaqi uu keenayo farta yar inaad isticmaasho farihii lugaha aad dhex gelgeliso marka aad biyihii ku falanqayso si gudihii uga qoyaan dad baa fartooda iyo sulkoodu isku dhegan yahay markay lugta ay dhaqayaan gudihii biyaha labada farood meesha iska hayeen oo dhaxe oo gudaha biyihiiba aysan gelayn aysan gaarayn sidaa daraaddeeda waxa waajibka ka mid ah in la takhliiliyo farihii gudaha biyaha loo geliyo waxaa ka mid ah at-tartiibu in la tartiibiyo tartiibku quraanka tartiibka noo tilmaamay oo aayaddu waxay ku tilmaantay ya ayuha alladina aamanuu idha qumtum ila as-salati waxa lagu bilaabay فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ترتيب كواساسوي إن هذا كالخور مرمرين آير حمناها إسواتبا ترتيب كوحا لغا وجهك وحبن لبدا قعمود وحبن مدح وحبن لبدا اللغوض إسواتنا وحبن إن أرد مركة ترتيب كسيد معناها واجبات حبناها إن هذا مدحي ماشي وجهه مدحي آذن كوهر مرين الترتيب كأكل الترتيب سيسوه حقان وأما دليل السنة نتصيتنا أن جميع الواصفين ذلك المامة أولا لوضوئه صلى الله عليه وسلم ويسقات الرسول ما ذكروه إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكره الله سوحوا تلمامين إلا أنه كان يرتبها وحوتتي مجرى رسولك على حسب ما ذكره الله سيدو القرآن كتلمامي مكلا هرمرين جرين sababta u keenaya waxa weeye tartiibka بعض العلماء ba sunnooyinka ku dara marka tartiibku wuxuu ku gelayaa waajibaadku ku gelayaa tartiibku waa sidaas weeye oo in weysaqaadka sida cala raajix min aqwali ahli ilmi weeye ibn qudama wuxuu oranayay jumladaas waxa weeye anna tartiiba fi alwudu'i ala ma fi al-ayati wajib 'inda ahmad لم أرى عنه فيه اختلافا وهو مذهب الشافعي وأبو ثور وأبو عبيد كذا أصلا وحا كتب مذهب إمام أحمد إمام الشافعي أبو ثور أبو عبيد رجع علماء واوين با كتغي وهما آيات بقرينة كتوسي سوية آيات ترتيب كتوسيسو ممسوحي مسحدي أي معناها دقيقتان كلا كلا دحجريو دب لوgu soo noqday اللغة العربية noqonaysaa hadda wad ku sii wareeraysaa in ka deynaya laakiin waxa weeye tartiibku wuxuu ka mid yahay waajibaadka weysaqaadku ka mid yahay adiladeedana quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada tilmaantay oo dhan sidaas ay tilmaameen qodobka lixaad ee waxyaabaha faradka weysaqaadka al-muwaalaat waxa weeye in la xiriiriyo aan la kala goyn oo xubin inta dhaqdo xubinka intuu qallalo hadana xubinka kala dhaqdo xubnihii in mawaalaad la xiriiriyo aysan kala qallalin kuwii kala adoon gaarin waajibka faradka ah daliilkeedu wuxuu u keenayaa Khalid bin Macdan ayaa wuxuu leeyahay can bacd ashaabi nabiy sallallahu alayhi wasallam saxaabada rasuulka qaar kamida anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'a wuxuu arkay rajulan buu arkay yusalli tukanayo wa fi dhahri qadamihi qadamkiisa iyo lugtiisa gomadeeda korkeedana lum'atu qadra dirhamin lum'a iyo calaamad dirham shilin in la ego kala la saaro oo lam yusibha almaa'u bihi aysan asiibin buu ku arkay qadamkiisa iyo lugtiisa fa amarahu wuxuu amray rasuulka an yu'ida alwudu'a wa salata weysaqaadkiina inuu soo celiyo salaadan uu tukanayo inuu soo celiyo maxaa yeelay weysaqaadkii baa u kala jaray muwaalaadka marka waxyaabaha hadda anaga meela aynu kaga fidnaysanahay baa jira dadka muslimiinta waqtiyadan dambe hadda jooga muhiimada ugu weyn waxa weeye macna almuwaalaat waxa loola jeedaa alla yatruka al'udhu hatta yajifa al'udhu alladhi qablahu fi zaman mu'tadil urfiga iyo caadada loo celinaya dhulku qaar waa qabow yahay qaar waa kulul yahay dadka muslimiinta ku nool yihiin waxa weeye inaan xubin laga tagin hatta yajifa al'udhu alladhi qablahu xubinka kale inaad dhaqdi markaad kii hore uusan qallalin inay isku xigaan lugihii baad halkan ku wajigii iyo gacmihii baad dhaqday waad dhaqaaqday ama hadal iyo telefoon baad gashay markaa ka bacdi xubinkii ka qallalay kii kalaad marka dhaqid ku bilowday hadduu xubinku saa u qallalo marka weysaqaadku soo celina waa inay muwaalaadu isku xigaan curfiga intay xubnaha kala qallari karaana caadada iyo curfiga dadka loo celiyaa marka waa saas way muwaalaadku saas u la jeedaa oo in xubnihii la xiriiriyo aan la kala goyn oo ay kamid tahay waxyaabaha weysaqaadka hadii la kala jaro xubnihii ay kala qallalaan
in ay weysaqaadkii burayso la soo celinayo lixdaasi waxa uu noogu tilmaamay marka in ay ka mid tahay weysaqaadka arkaantiisa iyo faradkiisa inay ka mid waxaan leeyahay faradka weysaqaadka inay ka mid tahay waxyaabaha faradka waa lix haddii lagu weydiiyo afarta qur-aanka uu tilmaamay iyo tartiibka iyo mawaalaadka waa lixdaas weeye maba hilmaami kartid marka adiladeedun baad iska xifdinaysaa laakiin afarna qur-aankaa sheegay aayadda qur-aankaa noo sheegtay tartiibka iyo mawaalaadkana sunnadaa noo tilmaantay tartiibka iyo mawaalaadkana bacd alculamaa sunnooyinka gelin qaar tartiibka gelinaya waxaa jira tartiibka qaar gelinaya waajibaadka waa ku jira mawaalaadka sunnadii geynaya qaar waxa weeye mawaalaadka waajibka geynaya oo tartiibka sunnada ku daraya laakiin sida raajixa sheekhu maray baa xoog badan oo culimmaduna ay u badan yihiin tartiibka iyo mawaalaadkaba inay gelayaan waajibaadka weysaqaadka iyo faradka ay gelayaan الضابط الثاني ضابط كاللبات نوصو أرورينيا الذي وحوي شروط الوضوء ويسقال كشرط هذا 7 تضبوية شروط دي وحا ليرادا انت آدم ويسقات كقودة سيدة روا رقني يا شرطي رقني مركات شيء عبادتي أتكو قودة جت قوديه ساسي انت أتكو قودة جت وحا لسامين يا رقني ليرادا قوديه 7 oo rugni ugu yimaada shardiguna cibaadadii intaadan guda gelin banaankeeda waxa laga doonayo inaad soo sameeyso ayaa shuruudii ah marka shuruudu laba nooc bay noqotaa oo halkan hadda uu noogu tilmaamayo laba shay uu raba inuu noo kala qeexo oo noo tilmaamo shuruudu qaarna waxay noqotaa shuruud oo sixatul wudu iyo shuruud waxay noqotaa macnaha shuruudu laba hadda noogu kala qaadaya shardiga ay ku asaxmayso weysaqaadka shuruudeedii buu rabaa hadda in uu noo tilmaamo marka wuxuu yiri halkaa hadda noogu tilmaamaya shuruudul wuduu'i ay shuruudu sixati alwuduu'i weyse shuruudii ay weysadii ku saxmaysay ku ansaxmaysay 7 weeye shuruudii ay weysaqaadka ku asaxmayso waa 7 buu rabaa marka halkaa inuu kugu qeexo oo kugu sheego marka wuxuu yiri shuruudul wuduu'i weysaqaadka shardigeedu waxa weeye 7 weeye halkaa uu kugu keenaya marka shuruudul wujuub iyo shuruudu sixa ay ahayd shuruudu sixadii buu hadda halkan oola jeedaa shardi waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud walaa cadam halkaa qawaacid fiqiga wuxuu leeyahay shardi waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam waxa ka laazimaya isaga weyntiisa wixii la samayn lahaana weyn baa ka dhalanaysa oo haddii isagii la waayo weysaqaadkii shaygaani haddii la waayo meesha la imaamay wixii la samayn lahaana waa la weyn oo tusaalaha waxaynu ku fahmaynaa marka aynu qodob u kala galno walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud haddii isagii la helana wixii kala joogitaankoodii iyo helitaankoodii shardi uma aha markaa wuxuu ku yiri ka istiraat wuduu'i weysadii waxaa loo shardiyayaa lisixati salaadii inay asaxato فلا تصح الصلاة بدونه مرك صلاة ما أصح ميسو إلا ويسقاتك أصو أصحمه لكن إذا توضأ لا يشترط أن يصلي لكن هذا سوى يسقاطه شد معه ممكن أنه تكنيه وجدوا يكرهوا يسقاطن كعمرك وقت تاسو لجي هذا وقاعد فقه وتكون الإنسان لكن والشيء يسقى هذه اللي هلنا معناها الهلي شيء لو سعري خديقة هذه يسقى اللوين شيء كان عن الهلين أيها الشرط لو لجي هذا أبو يري شروطاas marka ay ku asaxmayso weysaqaadkina 7 weeye inqitaacu ma shay go'itaankiisa yujibu waajibinayo asaga weysaqaadkii inuu go'o wixii weysaqaadka waajibinayay waxa weysaqaadka waajibinayay markaynu biyaha soo maraynay waxaynu niri xadadku waa labo xadad akbar iyo xadad asghar xadadka akbarka waa waxa qubays waajibiya xadadka asgharka waa waxa weysaqaad waajibiya halka marka inqitaacu ma yujibuhu waxa waajibin iyo weysaqaad waa kaadidii neeftii saxaradii iyo wixii la midka ah noocaas ahaa wixii waajibinaya in la waayo horta iyagu inay go'aan qofkii kaadidii ay ka socoto haddana dhinacna ka weysa qaadanayo weysaqaadkiisa ma ansaxmayo marka
tusaale ahaan saas raba in qofkiina kaadi baa ka socota ama neefti baa ka socota wayse qaadkiina wuu wadaayo wuu wayse qaadanaya xubnihii buu dhaqayaa marka waysadii ma asaxmayso waa inuu go'o horta shaygii waysada waajibinaya laftigiisa inqitaacu ma shay go'itaankiisa uu go'o yuujibuhu wayse qaadkiiba waajibinaya ayaa ka mid ah shuruudii waysada ku asaxmaysay tusaale ahaanna wuu soo qaatay wuxuu yidhi qodobka saddexaad falaa yasixu alwudu'u wayse qaadkii ma asaxmaya asnaa'a qadaa'i alxaaja isagoo xaaja geysashadii ku jira inuu haddana sii wayse qaata ma asaxmayo bal laabudda min inqitaaci albawli kaadidii inay go'do oo ilqaa'id ama saxaradii xataa yasixa wudu'ahu ilaa wayse qaadkiisa uu ka asaxmo taa marka waa qodob aho inay go'aan wixii wayse qaadka waajibinaya su-aal baa dihnigaaga iyo maskaxdaada iska weydiin doontaay oo ah qofka faleebada inta kaadidii tuubo la geliyey kaadidii ka socota se isagu u wayse qaadanaya ama u tukanaya dalaal bay noogu imaanaysaa waxba ha ordin insha allahu tacaala halkan laakiin shuruudeedii waxaa ka mid ah in wixii wayse qaadka waajibinaya horta ay go'aan hadday go'i waayaan oy soconayaan qofkii wayse qaadkii iyo cibaadadii salaadii ka tegaya may kama tegayay qaabku marka samayn lahaayo u wayse qaadan lahayo qaabku u tukanayo way noo imaanaysaa laakiin halkaa hadda shuruud inbuu ku horumarinayaa inqitaacu maa shay go'itaankiisa yuujibu waajibinaya wayse qaadkii ayaa ka mid ah shuruudii shardiga labaad waxaa ka mid ah ay ku asaxmayso wayse qaadkii alislaamu ruuxu inuu islaam yahay oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanku noogu sheega walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbatanna camaluk aayaddu way ku cadahay oo alla wuxuu leeyahay walaqad uuxiya waxaanu ku waxyoonay nebi maxamedow ilayka adiga iyo wa ila aladiina min qablika kuwii adiga kaa horreeyey lain ashrakta haddaad shirki la timaado wax ila wadaajiso layaxbatanna camaluka camalkaagii wuu burayaa camalka aad qabanaysa marka shardi waxaa u ah in wayse qaad qofku uu islaam yahay qof gaalka ama asaxmayso وقوله تعالى باللو دليشلا وما منعهم أن تقبل منهم إن لقى أقبل صدقات كودي يوحي لبحين ينفقات كودي وحديدي أو منعيي إلا أنهم كفروا بالله وحكوا قالوا بين الله وبرسوله رسول كيسا هذه صدقات كي وتعدي هاي العسكر الأقد بيس اللي قد ديدي هي إساق عبادة اللي كو أكيدنا وكثير من باب الأولى ويودليشنا يا آيات ساسو ودليشنا يا مرحبا وحكوا تصيصا islaamnimadu waa shardi ka mid ah in qofku uu markuu wayse qabo sheekh Saymin baa wuxuu yiraahdaa إذا كان الله عز وجل لم معناها يقبل منه أي من الكافر نفقدي زكاة حقه البعيين يوصن كأقبل فغيرها من العبادات من باب الأولى عبادات كانوا من الباب الأولى ولأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من غير مسلم ويسقاتكم هو عبادنا كأفرح ما يسقف عن مسلم هاي halkaas raba inuu ka aansiyo marka waxaan aad qabanayso wayse qaadku waa cibaadana waxa loo shardiyaa qofka sameeynaya alla ugu dhawaanay inuu muslim yahay marka shardiga labaad ee wayse qaadku ay ku asaxmayso waa islaamnimada shardiga saddexaad waxa weeye niyadii inuu niyad la yimaado xadiiska Umar ibn Khattab ayaa loo daliishadaa niyada sideedaba waa qasdi macmuul oo waxa weeye ikhlaas oo qalbiga waxaan inaad alla darti u sameynayso dhaqitaankan aad ku qabowsanaysay biyaha oo intaad xubnihii dhaqdo wajigii waa dhaqday gacmihii aad ka dhaqdo lugihii baad iska dhaqday caadi ahaan baad iska dhaqaysaa inaad ku qabowsato iyo inaad cibaado ahaan wajigii iyo gacmihii iyo lugihii iyo madaxii aad masaxaysay waxa kala soocaya cibaadadii iyo caadadii waa niyada weeye marka niyadaasi inuu la yimaado cibaado ahaan ula jeedo qasdigeeda macmuulka waxa weeye ikhlaas inuu la yimaado oo alla dartii cibaadadan u sameeyo uu dhaqayo gacmahan iyo xubnahan iyo lugahan iyo madaxa uu masaxayo niyadaas qasdiga weeye oo uu niyeysanayo niyaduna qalbigay ka timaadaa talaffud carab maaha marka niyadu laguma talaffudo dadka oranaya nawaytu farad alwudu'i waxaasoo dhan quraanna nama tusin sunnana nama tusin marka asal ma laha niyadu qalbigay ka timaadaa qalbigu ku qabanaya oo ka niyeysanaya عمر بن الخطاب حديث كسيبا لو دليشدا او درجر انه صامرنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه حديث درجر بينه صومعنا ان كتابك ادابنا انه كسو tilmaamay kitaabkana inuu ku soo marnay marka macaanidiisa ku daahimayno niyadu waxay kamid tahay shuruudda waysa qaadka waxaa loo shardiyeeyaa alcaqlu caqligii baa loo shardiyeeyaa
inuu qofku caqli leeyahayo majnuun uusan ahayn oosan waalnayn. caqligu waxaa loo daliishadaa xadiiskii caaisha iyo cali iyo ay warinayeen ay yidhaahdeen rufica alqalamu qalamkii wax laga qorayo waa laga dulqaaday can 3 saddex baa laga dulqaaday can naa'imi ruuxa hurda waxba laga qori mayo xataa yastayqida ilaa uu soo kaco wa can isabiyi ilmihii sabiga ee yaraa xataa yaxtalima ilaa uu ka qaangaaro wa can ilmajnuuni kii waalnaana qalinka waa laga raaficiya xataa yacqila ilaa uu wax kala garto. marka qofka cibaadadan iyo laga aqbalayana waa inuu qof caqli leeyahay. waxaa ka mid ah oo shuruudii ka mid ah at-tamyiizu kala soocid, qof inuu kala garanayo tamyiizka dhaqankii caadada inuu kala sooci karo oo dee ilmihii yaraa tamyiizka marka uu gaaro wax kala sooci karo wax kala garan karo ayaa loo daliishadaa. oo waxaa ka mid ah xadiiska hadda la daliishanayo laftigiisa ka mid ahaa loo daliishanayo falaa yasixu alwudu'u min gayri mumayiz liannahu laa niyatan muncaqidatun lahu faashbaha almajnuun. macnaha qofkii yaraaye ilmihii yaraa hadduusan caadadii weysaqaadka iyo dhaqitaanka iyo weysaqaadkii qalb niyadda iyo mumayis uusan ku samayn karin oo kala sooci karin weysaqaadkiisi ma asaxmayo. ilmuhu intee bay tamyiis ku noqdaan, caqligooduna way ku xiran tahay qaabkay wax u kala soocayaan. da-dooda badan inta culammadu 7 sano iyo wixii ka bilowday yidhaahdaan. almaau ahuur, almaa aطahuur ayaa ka mid ah shuruudii weysaqaadka ay ku asaxmaysay in biyo daahir ahoo lagu tahaaro qaadan karo in ay biyuhu yihiin. biyahana waynu soo marnay xukunkooda. shuruudda weysaqaadka waxaa ka mid ah almaau tahuur qofku inuu haysto. maau tahuurku waa kuwii hore aynu soo marnayo waxa weeye biyo magacii biyanimada wato aan wax kale ku darsaminoo markaad isha saarto biyo ay yihiin. oo waxa uu ka saarayaa biyihii daahirka ah ayaga ee wixii daahirka ku darsamay sida waxa weeye biyay ahaayeen markaasaad borosh waxaad ku dartay wax la qaso borosh bay isu bedeleen, canaas bay isu bedeleen, liin bay isu bedeleen. biyahaas laguma weysan qaadan karo xaggaynu kusoo faahfaahinay, laakiin biyuhu hadda ula jeedo waxa weeye almaau tahuur biyihii daahirka ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamo wax kale aan ku darsamayno magac kale iyo sifo kalena aanan qaadanaynin ayaa shuruudda ka mid a inaad ku weyse qaadato. haddii ayagii la waayo markaas dee way noo imaanaysaa boraysigii iyo gabagabaysigii baa noo imaanaya. inaad marka biyo aad ku weyse qaadataba haddaad weyso maxuu qofkii samayn meel kale noogu imaanaysa. laakiin waxaa shardiga ka mid ah shuruuddii weyse qaadka ay ku asaxmaysay biyo daahir ah oo tahuur ahoo wax daahirin kara inaad haysatid. oo xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam buu u daliishanaya hadda noogu keenay fi maa'i lbaxri huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu. biyuhu waa daahir, baktiga ku jira badina waa daahir oo waa xalaal weeye. oo xadiisku asalkiisa bilowgiisa wuxuu ahaa inaa narkabu lbaxra wanaxmilu macana qaliila min almaa fain tawada'na bihi catishna fanatawada'u bimaa'i lbaxri. rasuulka allow bidaanu fulnaayo biyo yaroo macaan baanu qaadanaa. haddaanu biyaha yarka macaan ku weyse qaadanana waanu haraadaynaayo biyaha badda ma ku weyse qaadanaa. markaasuu rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam huwa tahuur maa'uhu alxillu maytatuhu. biyihii badda waa daahir waxna way daahiriyaan, baktiga badduna waa xalaal weeye. marka ugu daray xukunkaasi waxaa ka mid ah izaalatu maa shay zuulintiisa yamnacu mancinayo oo celinaya wusuulahu biyihii inay jadkii iyo jasadkii iyo maqaarkii gaaraan. waxaa halkan soo hoosgelaya qofkii xubnihii faradka ahaa ee dhaqaya sharooto ay kaga dhegan yihiin, ama wax biyihii inay jidka gaaraan didan oo macnaha ay kaga xiran yihiin, ama faashad daba kaga xiran oo gacantii xubinkii faradka ahaa ama lugtii inta faradka ahayd la dhaqayay ama wejigiiba waxbaa ka saaran. wixii la saaray ama gabadhii cidiyihii rinji baa u marsan, rinjiga qoorta leh ee kacaya wax alla wixii cidiyaha la saartoba haddii gabadhu ku weyse qaadato weyse qaadkeedii ma ansaxaynin. maxaa yeelay shardi baa ka dhimano izaalatu maa shay in la zuuliyo yamnacu mancinayay oo celinayay wusuulahu biyihii inay gaaraan. oo muxuu u daliishanayaa xadiiskii laqiit ibnu sabura ana nabiya sal qaala asbiqi lwudu'a weyse qaadkii taam yeel wakhallil bayna alasaabici farihii dhexdoodana gaarsii. oo xadiisku way ku caddahay farihii haddii dhexdoodii meeshii xirnayd ay farihii isqabteenba la yidhi biyaha la gaarsiiyo qof wax sii saartay oo sharoota iyo wax ku dhejiyey ama rinjiga marsaday waxa la midka ah biyihii maqaarkii cididii hoose aysan u gudbayn weyse qaadkiisi ma asaxmayo. gabadhu marka hadday rinji markii cidida lagu xoqo qolof yeelanaya
waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan daawo madobeysada cidiyaha la marsado ma soo hoosgelaysaa saysan su-aashu sidaa u imaan wax alla wixii cidiyaha la marsado hadday fuqayaan oo qolof ay yeelanayaan markaad cidida saa ugu qabatood xoqdo qolof ay yeelanayaan ma ku weyse qaadan kartid cilaanku wuxuu kaga duwan yahay rinjiga cilaanku wuxuu dhex gelayaa cididii buu dhex gelayaa qolof yeelanaya isagu laakiin wax alla wixii markii la xoqo qolof yeelanaya oo fuqaya waa inuu qofkaa zuuliyo haddii kale qubays janaabo ama xayd kama ansaxmayo wayse qaadna kama ansaxmayso gabadhii ama wiilki izaalatu maa shay in la zuuliyo yamnacu mancinayay oo celinayay wusuulahu inay gaaraan jirkii biyaha inay gaaraan shuruuddii wayse qaadka waxaa ka mid a waxaasi inuu qofkii zuuliyo haddii ay sharooto gacantii xubinka fadadka kaga xiran tahay uusan zuulin karin oo nabar lagu xiray muxuu samayn waynu u tegaynaa taasna marka waxaynu ugu tegaynaa inuu ama booraysanayo ama qaabka jabiirada la yidhaahdo ee jabniinka iyo waxyaabaha la saaray iyo qaabka uu samaynayo way noo imaanaysaa laakiin asal waxa ah qofkii aan cillad kale aan haysan markaa inuu zuuliyo wixii wayse qaadka mancinayay oo celinayay jirka inay gaaraan intaa wuxuu noogu keenay 7 shuruudood inaad iska ilaalisid waxyaabaha waxay ka mid tahay shardiga ay wayse qaadkaagu ku asaxmayo haddii mid ka mida lagaa waayo wayse qaadkaagii kuu jiri mayo waa burayaa mana ku tukan kartid wixii aad samaysay الضابط الثالث ضابط كسدحات 10 كنا عاوة وحوي سنن الوضوء ويسه qaadka waad godaysaa mar walba haddaad sunan الوضوء aad tiraahdo macni waa kaa qaldamaya luqa ahaan bay kaaga qaldamaysaa sunan الوضوء wayse qaadka sunankeedu waxyaabaha sunnada ah 10 weeye kutubtiisa dambe ee tabacaadka hadda aad haysataan aanan ahayn ka dambeeya soo baxay 12 ka dhigay marka waa 12 meesha hadda 10 uu ka dhigay marka hore basmaladan waxa uu soo raacinayaa oo noo imaanaya oo uu sheekhu soo hoosgelin doona 12ka uu u leeyahay waan idin tilmaami doona insha Allah taala laakiin kutubtiina hadda kuma qorno laakiin 12 kale ay kutubta cusub ee hadda daabacan soo baxay ku jira marka waynu tilmaamay sheelaynu ku tilmaamayna sunanul wudu'i wayse qaadka waxa sunnooyinka 10 weeye al bismillah ama basmalatu bisanki sunnooyinku ku daray sheekhu waa mas'ala khilaaf oo sida culimadu u badan yihiin muhaddisiinta iyo culimadeena hadda Soomaalida waajibaadka la raaciya marka waajibaadkii 6 ahayd markii aynu marayno ku dar marka bismilladii ku dar bisinki ku dar 7 ku noqonay laakiin hadda sunnooyinku kugu soo daray waana sida ay jamhuurul ulama ay marayaan culimada ay u badan yihiin waxa weeye bisinku waxay leeyihiin waa sunnooyinka ka mid tahay التسمية مركا بسنكي بسم الله تسمية أو بسم الله أو يراد فقط أو كلية كل ميسي بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يسي بسم الله ويكلي بسم الله أنت أصدقوا كنيسة مركا قفك ويسا قادني إنه الله مقعابه أو يراد بسم الله حيا الحديث يقول عدها الله صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث كاز مركا علماء صحيح نيسا واجب كي يكون ضريان culimada qaarkood dacfigiisa iyo meelo badan wax ka tilmaamayana in shayga cibaadada bisanka lagu bilowdo halka ay ka samaysanayaan bay u dalishanayaan laakiin hadda sheekhu inay sunno tahay uu maray laakiin sida raajaxa bisanku waa waajibaad ku galaya saa ula socda bisanka waajibaad ku galaya qodobka labaad waxa weeye siwaagii cadaygii in la cadaydo sunnooyinkii bay ka mid tahay وحديثتي بدنيت صومرتي كوينو صومرني ألفت إنه كصومرني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء دي أنا كبقين أمضي إذا إن الأمر أمر وفرضي عضيقة وحن أمري لها لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ويسقاك كستليتين كيسا مركي ويسقا هذا يعني إن أي حضيضان بانفري لها بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنا كبقين إنه فرضياله هذا عدكم فرضياله يسمجرته وحي مدقيه مركز سنوين كوناك سنبو قاليا ومركز لو يسقى هذا وفي إنه عضيضه وحكم إذا سنوين غسل الكفين معناها على لبضع علوت غسل دقيق الكفين لبضع على علوت بابعاد قعنتها إن لا دقه waxay ka mid tahay gacantii inaad dhaqdid labada calaacalood aad dhaqdid sunnooyinka intaadan bilaabin wayse qaadkii oo wajiga aadan dhaqin gacmihii banaanka la dhaqayay sunnooyinkay soo hoosgelayaan dhaqitaankoodii sunnooyinkay soo hoosgelayaan
وحو كمد أسنوينكي البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. البداءة قبل الغسل، البداءة قبل الغسل والوجه لبضوا ديك تحديدا بالي. البداءة بالله بدي قبل الغسل الوجه انت لا دقين بالمضمضة والاستنشاق لقشر لا فرضك وحو اسكو كاسو داي وحو كيري ان وجهي لا دقو ومنه حكمده المضمضة والاستنشاق بكيري لكن ان لقشدي يا سندارسي لوغو هرمرو ايا سنه أي واجبات كبير كجران لكن كلا هرمرينتا وجهك marka aad dhaqaysid ma wajigii hore intaad dhaqdaad ka bacdi hadana luqluqanaysaa oo san ka daarsanaysaa ma sunnada waxa intaad luqluqatid oo san daarsatid wajiga aad dhaqdid farqisaasi labadoodii u hoosgalayaan albadaa'atu inaad ku bilowdid qabla alghasl alwajhi wajiga intaadan dhaqin bil madmadati luqluqashadii wal istinshaqi iyo biyihii sanka la gelinayay wuxuu keenayaa xadiiskii Abdullah ibn Zayd ثم أدخل يديه في الطور ويلكي طور كأهاب وقعنت الجليل فمضمض وولغ رسولك واستنشق وصندار صدي واستنصر وسكسيمي بيه وسنك الجليل ثلاثا بثلاث غرفات سد حجر بسايريو سد قاضي شنو كسمية وسد قاضي شوافه انت هذا وجه جدا قعميه وين صامر يدهرون وقصوا شجاي وغسل الكفين وير لبدا كفود على علود إن لا نقو مركز هذا بيه سوق قاضي صعب سوق قاضي أفكين حوجا بات قاضي سنكين حوجا بات جلسي يعني بيده حدا نواد سكجدي في سوا مر فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات سدح قاضي شو كسمي مر لبعض بات هدنا سوا قاضي سا أفكين حوجا بات جلنيسا وكل لقنا سنكين حوجا بات جلنيسا وسكسو دي فينيسا مر سدحات بات قاضي سا سدح قاضي شو كسمي وحماشة كساريا dadka sameynaya biyi baad soo qaaday waad ku luqatay waa iska turtay hadana mar labaad soo qaaday afkii baad gelisay waa ku luqatay hadana mar saddexaad luqluqashadii saddex jeer bay noqotay sandaarsigii biyi hadana saddex jeer oo kala lix bay noqotay qaabkaas riwaayaadka tilmaamaya ma saxna waana daciif weeye laakiin waxa saxan riwaayaadkan rasuulka sallallahu alayhi wasallam bukhari iyo muslim ay soo saarayaan rasuulku weelkii buu gacanta geliyay فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات سدح قاضي شو كسميو قاضي شو والبلق لقشي صندارسي بو وداجي حديث كده ويكو عدها مرك وحكم إذا وحيابها ويسقاتك سنوين كده المبالغة إن الروح الديرادو فيهما لقشي صندارسي إن الروح الديرادو لغير صائم قفك عن صومانين qofka aan soomanayn marka aad sanki biyaha gelinayso inaad ku xeel dheeraato xooga aad jiido luqluqashadina aad ku xeel dheeraato saas uu ka wada ligayri saa'imin qofka aan soomanayn wuxuu u daliishanayaa rasuulka wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam min hadith laqit ibn sabura anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam asbigh al-wudu'a wa yasqatki tamyal وخلل بين الأصابع فريه دحدودنا قلقلي بيه وبالغ في الاستنشاق صندارسي بيها كحل ليرو وجيد إلا أن تكون صائما إن أتصومنتهي مويه مرهدات صومنتهي كحل ديران ميسيد وحكم إذا تخليل اللحية الكثيفة التخليل إلا قليه اللحية قركي الكثيفة معناها اسكو عفنا قركي ويناء عفناء نحقشنا إن التخليل كسميزو قعنتي أدحقل قليسو وحود ليشانيا من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم قرع فنبو لها الرسول كي إذا توضأ أمركو ويسقى ذنيه أخذ وقادي كف من ماء كف يصعب بيكبوحان فأدخله قلينيه تحت حنكه هلكا معناها قرق يلون تيماشا اسكسو قلان بكسو قلينيه فخلل به لحية مكاسو فراه سو دح قلقلينيو انتو هوس دونتا كسو قليو ايو ساس انتو قلقلينيو قعمها فراه او كرعو قسو ساري مركاسو رسولك وحو اوراني هكذا امرني ربي سلاسو ربي جاي افاري مركاسو النوينك وحا كاملة قفك قرك اسكاله رقيا والله بوي قف قر عفن وقر وين او مركاسا اوغسو رجيدو قديه صدنبئي iyo hoose aadan arkaynin iyo qof gar khafiif laho hadii aad fiiriso dhuntiisi iyo jirkiisi iyo hoose aad arkaysid kaas laqidu hoos galaya garka khafiifka qofka leh faqsilu wujuham tibiso hoos galaya ila wajigaynu tilmaanayo waa tufooda ila iyo waxa weeye garka salkiisa inuu niree dhaqitaankii buu galaya ama haduu garku cufan yahay تخليل اللحية الكثيفة
وبيو سوق هذا إذا توضأ أخذ كف من ماء كف صعب بيكب حانو سوق هذا دون توصل انتو سوق يساق عنت انتو أسود حقلي قف كل شان لينا يو خلو فريه ساق أسود حقلي يو قف لان كينا وحكم إذا سنوينكي تقديم اليمنى على اليسرى سنة وحكم إذا تقديم اليمنى مدكتي إن لهرمرية على اليسرى بدحدي كل لهرمرية حبناها مركا ميدكتا بدحدا laga hormariyo waa xubnaha ila wajigu waa xubin weeye waxa laga hadlayo xubnaha labada ah ee waajibka isla aha sunnada waxa ah inaad midigta hormariso labadii gacmood marka aad dhaqaysid dhaqitaanka waa la isbaro quraanka waxa soo aroortay gacmihiini dhaqa ayada quraanka soo Allah subhanahu wa ta'ala u tilmaamay laakiin sunnanimada waxa weeye in aad midigta hormarisid taqdiimul yumna midigta in la hormariyo ala yusra bidixdii laga hormariyo وصنع أقومك إن ملك الهرمرية بالحد لقى هرمرية وحكمد الغسلة الثانية والثالثة دقيتان كي لدقي حبنكي معناها الله بجر يصدح جر إلا فرض قوة هالمر وقرآن قوة المامي غسلة الثانية دقيتان كلا بعد الدقي والثالثة مدة سدحنا وصنوي هذا تي هراء جرسي سو فرض كي أهي تنلبات يتنسدحاد وصنوي وحكم إذا دلك الأعضاء الغسلة الثانية والثالثة وحود دليشانيا حديثك دليلك عبد الله بن عباس أيا وحا أولي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرمر بو دقي حمني يوردن وجهي مربو دقي قعنتي ميدك مربو دقي بدحدي مربو دقي لوقتي ميدك مربو دقي بدحدي مربو دقي وداد بيها ودا قاسيني سدوي عبد الله ابن الزين وحوى رسولك في حديث كيس كمدها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين لبا جرب الرسول كويسك أن دقي حبنه فدل على أن الغسلة الثانية والثالثة سنة مرك تنلبات يتنسدح سنة نما ينوت الماء يسا مرك وحكم إذا سنوين كويسكاتك دلك الأعضاء إن الدليل مرمرين تجعنت المرمرين يحبناها سنوين كيسوس كشا لكن حبين كعداد بيسا أنت قول لك جلسة أتكسر صارته بينا أي وذا جاران فرضك وكان عاي أما إن جعنت مرمريسو دلك وحل على المرمرين توجي جعنت المرمرين ييو جعنت مركز دقيس جعنت أتكوك كم مرمرين يتدلك اللي يراده دلك النوع عاس أهنا سنوين كوكو دري شيخ وأنا سيدا صحة ويو وحليه هاي أن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد صدح من الله تجي مد كيسب الله كاني فجعل يدلك ذراعيه وحب الله ذراعيه كي جعميه يقول ماضي إنه معناها بعنت مرمريه حديث كي بيهقي حاكم ابن حبان يكيني بقار بعض العلماء ضعف بيكون شيئا وحاكم إذا الدعاء دي بعده مركي ويسقات كلا ضمية كذب بالمأثور إصاء رتقك إنه كده عيسنا سنوين كي ويسقات كي كم يتهاي طبعا كيساس إنه هو كان لبضة الرعية ضمبنا كتبت الضمبية صوب حدا الرعيين أو هذين شيء جيا مركا إن دعاء الله آخر وحكوسه أرور من حديث عمر بن الخطاب وحولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقلي رسول قوله ما منكم من أحد قف إذن كم إذا مجره أو يتوضأ ويسقى ذنيه فيسبق الوضوء ويسقات كتام يليا وصف عن أرقى حمنه ثم يقول أرنيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قفصا أرنيا مجر مركو ويسقات كتام إلا فتح له أبواب الجنة وحلوف ليا روحاسي الباب الجنة الثمانية سديد أهيد يدخل وحا كجليا من أيها شاء تضون كجليا دعاء قفك أخريسا كجريودا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قفك سدا يرادا إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية سديد الباب الجنة الله فريا يدخل من أيها شاء كجليا وزاد الترمذي إمام الترمذي صوح وقصي دري انت مركو يراد قفك سير راعية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله واحد إيجاي شاكوة توبة كين كبضان ومركي قفان بأ الله أصلا نغضو توبة كينا واجعلني من المتطهرين إيجاي القوة إصطاهرية ظاهر إيه باطن با ظاهر كان إسكت ظاهرية وحيابها وحنحن عبادتي اللي ماذا باطن كان إسكت ظاهرية حمانتي إيه وشركياتك إيه قلبي كظاهرية marka taasu sidaas u keenaya waxa uu raaciyaa oo uu ku daraa oo uu macnaha uu raaciyaa sheekhu Allahu musta'an
تقديم اليسرى مجاوزة محل الفرض تاسع إذا كم مقال مجاوزة إن لا ضعفيه محل الفرض فرض كمحل كيس إن لا ضعفيه انت فرض كأهيد القرآن كأوشيغي إن لا سيطة في أحاديث المامي سيرتو شيخ كتاب كيسان هو كتغي لكادو كتبتي سدنبو كسو داري او waxaa kamid ahaa xadiiskii waxa weeye abi hurayra aad garanaysaan ida tawadda faghasala yadi hatta ashra fi al-adad illa macnaha dhudhunka kore uu tago warijlay hatta ashra fi saq kore illa uu ka tago xadiiska abi hurayra markaasuu oranaya hakada ra'aytu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yatawadda rasuulkan arko sida uu weysa qaadanay marka xubinkii faradka ahaa inaad wax yar aad dhaafiso hadday gacanti ahayna xusullada intaad sii dhaafisa ilaa iyo waxa weeye garabka ku dhawaashiisa aad geysa iyo taasi macnaha way ka mid tahay waxa kale oo la raaciyaa oo sheekhu isaguna uu qodobka labaad ku daray Allahu musta'an oo hadda noogu jirin oo meesha ay nooga mid ahayd 10ka ahayd taasi waa ku 11 bay ka mid tahay waxa ka mid ah Allahu musta'an oo uu raaciyaa waxa uu raaciyaa الزيادة في ماء الوجه زيادة بيها وجهك وحو أدليشنا حديث حسن أبو داود يا بيهقي وشالبان إرواء غليلك وكصحيح من حديث علي بن أبي طالب ابن عباس بوحي ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ميانا كوي سقادنين علي بن أبي طالب بعدها يا عبد الله بن عباس ويسقاتك النبي صلى الله عليه وسلم مركاسي قال بلا فداك أبي وأمي أعطاه هو يدي هالغوفرته ويسقاد سيد رسولك ويسقادني فوضع إناء غسل يديه ويلبالوك يعني مركاسه قعمه دقي ثم مضمض واستنشق واستنثر ولقلقضي وصندار صدي ويسكسو الديفية ثم أخذ بيديه فسك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه معناها وجهي وقعنت ثم عاد مثل ذلك وجهي إن معناها سدح جير لدقوم بهذا حمنيه هراء ودقيتانك بنور راعية وحوين زائدين بيسو لكن وحكذا في عناية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة غرا محجلين من آثار الوضوء حديث كي المامي معنا وجهي عدانتي سفيفي عن الله دقو سدح جير بيه لدقية لوضع سور راعية لبيه طبعا بين نقطة كتب تضم ماشي هذا يسمى الوضوء halka hadda uu noogu keenayo 10 uu noogu keenayo intaas waa inta caawa uu noo keenay oo 10 keena ah 10rada noogu xiga marka waxa noogu xigaya baabu masx ala al-khufayni khufka waxa la yiraahdaa waxyaabaha lugaha la gashto haraga la gashto sokiska kabaha iyo qaabkii loo masixiyay in mudada la masaxayo inta qofka say uga jabaysay waxa jabiya waxa noogu xigi doona maxaa weysa qaadka jabiya dadkii marka ay ku taagnayd haweentu weysaqaadka ma jabisaa iyo waxyaabaha weysaqaadka jabiyo dhan halkaas ay noogu imaanaysaa kadibna qubayska sida looga qubaysto janaabada iyo xaydka iyo nifaaska iyo noo imaanaya halkaas aynu ku tilmaami doonaa kadibna waxaynu raacin doonaa oo tilmaami doonaa inta kadib tayammumka marka aynu gaarno qofkii biyihii macnaha ay kari waayay oo awoodi waayay ama waa qof curyaan ah oo meel ku xirxiran ama qof faleebooyin ku xiran oo sariirtii looga tagay cid u weysa qaadaysana ma jirto muxuu sameeynaya qaabka u booraysanaya boorasho carra kaliya booraysiga mise darbiga waa lagu booraysan karaa sariirtii u saarna waa lagu booraysan karaa waxyaabahaas oo dhan halkaas aynu ku faahfaahin doonaa insha Allah ta'ala haday xay tahayna qubayska aynu ku faahfaahin doonaa gabadha dhiigga ka qubaysanaysa ama janaabada ka qubaysanayso qaabka ay u qubaysanayso sharciga uu yahay haday khufayn iyo waxa haraga lagu halgeliyo ay tahayna waa 10 keena dambe insha Allah ta'ala caawa 10 keena intaas ku egyahay wajazakumullahu khairul jazaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh